waxaadna ku jirtaa contract iyo miithaaq baad qaaday qofka contractgaas kuma xisaabsano qiimo kuma laha lianna caqiida tadmiir brainwash ayaa maxaa ku dhahda maskaxda waxay ku samaysay inaad fidradaada kaa kaxayso oo caqiida tadmiir ay kugu bedesho fidradii saxda ahayd ama caqiidadii saxda ahayd ee aad raaci lahayd tacadud alcashiiqaadku xad ma laha tacadud alxabiibaat xad ma laha aabihii waa cashiiq maama aabihii waa cashiiq habeen ama isbuuc kamid a isbuucyada guriga yimaada ilmihii waxa xiriira kama dhexeeyaan baxsiyada marka maxaa ku dhahday laga qoro wiilasha dhanka dumarnimada u bata ee raganimada ka taga waxaa la sheegaa wiilasha aan aabaha la soo korin inay u badan yihiin amaba laga faa'iidaystaba mar waxaa jirtay aan documentary baan daawaday lagaga hadlayay nin waxaa lagu wareysanayay nin inamada yar buu faraxumeyn jiray waxaa la yidhi maxaad ku doorataa daxiyadaada qofka victimka ah ee aada ugaarsanaysa maxaad ku ugaarsataa wuxuu yidhi aabuhu inuu yahay maqane ama uu yahay ha joogee maxaa ku dhahday aaba qalafsan oo aan aqoon lahayn iyo hooyo burbursan oo keligeeda oo singalmaada taasoo kaleeto oo maxaa ku dhahday murugo dareemaysa oo maanta noloshu ay ka wareersan tahay iyo ilmo indiwaa'i ah oo bulshada iyo saaxiibada ka dhex baxsan waxyaabahaas waxay ii sahlaan buu yiri inaan ilmaha intaan yacni dee maxaa ku dhahday hero inaan ahay isaga muujiyo aabanimaduu rabay tuso oo maaragtay wixii uu qalmay maaragtay shucuurtii iyo maaragtay aan tuso kadibna aan ku xadgudbo marka wiilashu waa domestic violence-ga ugu badan adduunkana waxay ku dhacaan wiilasha yaryar marka xogahaas oo kaleeto la ururay domestic violence wiilasha yaryar ciyaalka domestic violence dhanka childrenka ciyaalkay ku dhacda domestic violence-ga ugu badan laanna wiilku maxaa ku dhahdaa wuu ka duwan yahay gabadha taasi waxay keentaa xataa wiilku inuu fidradiisa ka tago sababta waxaa weeyaan wiilku hooyadu qudwo saxa uma noqon karto gabadha qudwo saxa u noqon karta marka wiilashii yaryaraa waxaa laga yaabaa qeyb kamid a in ay arrintaa ay salfadaan ilaa cashiiq maama uuba ka cabsanayaaba halka maalin ama aabahani 4 guri 3 guri buu leeyahay maalinta uu yimaado waa lagu cabsi gelinaya xiriirba kama dhexeeya hadhow markuu weynaado isaga soo madax leekaado uu khilaaf kala hor yimaado iyo madax adayg ama balwad yeesho waxa kaliya uu odaygani ku sixi karayo ilmahan dee mawaaqifta uu kaga hor yimaado waxaa weeyaan inuu xabsi geeyo ama tahriibiyo ama tabliiq ku daro ama maxaa ku dhahdaa boarding geeyo yacni cid kale u dhahayaa ii qabta marka meesha that's why marka sawaajka inuu sakan yahay oo lamaane kaliya uu dhex maro ilmahan aabahood iyo lamaanihii dadki inay xifdi si sax ah dadki inay u dhowrsoonaadaan baa la rabaa in si sax ah ay u xifdismaan laanna waxan waa amaana ilmaha ifka imanaya waa amaana gabadha waa laga yaabaa haddii aaba weydo inay nin xun oo kasta ay iska gursato nin wanaagsan waxay ku dooran lahayd ama aabaheed uu xun yahay nin wanaagsan waxay ku dooratay inayna aqoon laakiin fidradii inay ka tagtag gabdhaha way adagta hooyadii bay haysataa laakiin wiilku aabaha maqna joogaha cashiiq maama ah oo habeenada kamid imanaya ama isbuucda kamid imanaya ama bilbilaha kamid imanaya ama dhowr sano kadib soo degaya hal maxaa ku dhahdaa hooyadina sidaa ku qaba ifka keenay subxaan allah dadku been quluubka alxajar waxaas oo dhan waa wax maxaa ku dhahdaa qof walba iyo aakhiradiisa oo ilaahay la hortegi doono taas waa nikaaxa ilaahay u baneeyay ilaa guri ku degdegto wax fudud ma aha aabanimada iyo hooyanimaduna wax dhamaada maaha waxaa laga yaabaa inaad 90 sano jirto qofka 60 sano jira aad dhashay ama 70 jira 20 jirka ku dhashay weli aabaya hooyaad u tahay still waalidnimadu wax dhamaada ma aha marka ay korayaan iyo xilliga muraahaqada iyo xilliga dufuuladana waa xilliyada ugu adag la rabo inaad protect garaysid yacni inaad meel uga maqnaatid ma aha haddii kale amaanadii ma aadan qaadin amaanada maaha kaliya inay guryaha kamid ay degan yihiin aad biil usoo dirto ama guri maxaa ku dhahdaa haddii ay degan yihiin aad cunto siisa amaanadu taa maaha amaanadu akbar min hada